waxaa xalay mar kale lagu kala kacay wadahadaladii maalmaha laga dhex waday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. xalay waxay ahayd markii ugu dhoweyd ee ay wadahadaladu guuleysan kareen iyadoo dhowr qodob laga fujiyay ra'iisul wasaaraha, laakiin mawduucyo cusub oo dhanka madaxweynuhu ku soo dareen heshiiska ayaa sababay in la kala boodo. sida aad la socoteen intiina badan waxaa maalmahan dooda dul taagneyd wasaaradda amniga iyo hoggaanka NISA. Roble waxaa la sheegay inuu ugu dambeyn aqbalay soo jeedinta guddiga dhexdhexaadinta oo ah in Cabdullaahi Maxamed Nuur loo wareejiyo wasaarad kale oo aan ahayn wasaaradda amniga, halka NISA lagu heshiiyey in loo dhiibo qof labada mas'uul heshiis ku yihiin, iyadoo ku-xigeenkuna uu si gaar ah uga imaanayo dhanka ra'iisul wasaare Roble. magacaabista waxaa loo dhaafay Farmaajo. waxyaabaha kale ee madaxweyne Farmaajo loo dhaafay waxaa ka mid ah inaan wasaaradda duulista hawada la geyn karin Cabdullaahi Maxamed Nuur, maadaama uu Farmaajo xilligan lagu jira doorashada muhiim u arko duulimaadyada. markii lagu dhow yahay gabagabada heshiiska waxaa la sheegay in kooxda madaxweyne Farmaajo miiska soo saareen in xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo taliyaha NISA. Cabdiraxmaan Dheere waa gacanta midig ee Fahad Yaasiin. qodobkan waxa uu durba burin ku ahaa qodobkii sheegayay in laga heshiiyo cidda loo dhiibayo taliska NISA. ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu si weyn uga biyadiiday in Cabdiraxmaan Dheere loo dhiibo taliska NISA, waxaana guddigii dhexdhexaadintu u arkeen tallaabadaas mid lagu fashilinayo waanwaanta. xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxa ay sheegeen inuu Roble si weyn xalay isu dabciyey si looga gudbo labada mushkiladood ee hortaagan xallinta xiisadda iyo diirad saaridda cadaaladda Igraan Tahliil, laakiin waxay qabaan inuusan Farmaajo marnaba raalli ka ahayn in la heshiiyo. madaxtooyada Galmudug oo si weyn isugu xil saartay xalka gaarista arrintan waxa uu wasiirkeedu sheegay in wax walba ay ka dhaqaaqi waayeen dhanka madaxweyne Farmaajo, balse sargaal magaciisa qariyay oo ka tirsan Villa Soomaaliya oo BBC-da laanteeda af Soomaaliga la hadlay waxa uu sheegay in aanay wadahadalladu wada burburin, wuxuuna rajo ka muujiyey in xal la gaari doono. madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeeyey inuu rabo inuu 100% isagu ku adkaado loolanka, taasoo si adkaynaysa xaaladda. waxaa tallaabooyinka xalay ka muuqatay in lagu tirtirayo dhammaan magacaabistii uu ra'iisul wasaare Roble sameeyey intii uu khilaafku jiray. ra'iisul wasaare Roble waxaa lagu baaqay inuu diiradda saaro qabashada doorashada oo uu raadiyo dhinacyada ka maqan isagoo aan waqti badan ku lumin khilaafka isaga iyo Farmaajo. Qoorqoor iyo Maxamed Mursal oo maalmahan u taagnaa inay xal ka keenaan labada nin ayaa laga soo tabiyey inay quus taagan yihiin. waa markii saddexaad oo ay guuldareystaan wadahadallo laga dhex waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha tan iyo markii uu khilaafku bilowday horaantii bishan. maadaama dhinacyada Soomaalidu xallin waayeen xiisadda labada mas'uul, waxaa jira warar sheegaya in wakiilada caalamiga ah ee jooga Soomaaliya inay ka fakarayaan inay arrintan u qalab qaataan, taas oo haddii ay sii jirta laga yaabo inay si aan fiicnayn u saamayso geedi socodka dalka. kiiska Igraan Tahliil oo isaga ka soo bilaabatay doodu wuxuu hadda u muuqdaa inuusan sidii hore u xoog badnayn, walow guddiga dhexdhexaadintu sheegeen in qodobkaasi la isku raacsan yahay in loo dhaafo hay'adaha cadaaladda. maxay kula tahay adiga?